Bismillahirrahmanirrahiim wacan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show waa 6 Maarso 2026 qodobada qaybtan aan idinkugu haynana waxaa kamid ah warbixin soo baxday ee waxay sheegaysaa in Iran ay weerartay Imaaraadka Carabta in ka badan 5 laabka inta ay weerartay Israa'iil taa oo ilaa hadda xildhibaanada ay aad ugu jahwareersan yihiin ururka Hezbollah oo war-saxaafadeed soo saaray ka oo ku wajahan Israa'iiliyiinta dhinaca kale xog soo baxday ayaa waxa ay sheegaysaa in Mareykanka uu ku mashquulsan yahay xulafada sida humaaga u sameeyay in aan aadka isugu talnayn Ruushka Iran iyo China sida uu kala dhantaali lahaa oo ganacsigooda uu cuuriyaamin lahaa wasaaradda difaaca Kuwait oo ka hadashay khasaaraha soo gaaray askarteeda Israa'iil oo hakisay masjidka Al-Aqsa in lagu oogo salaada Jimcada ciidanka difaaca Israa'iil oo bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay diyaar u yihiin inay qabtaan gantaalada Iran qodobo kale ayaa raaci doona aynu ku bilownay sargaal sare oo ka tirsan militariga Iran ayaa sheegay in isku day kasta oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku doonayaan inay ku afgambiyaan maamulka Iran iyadoo loo marayo fawdo hubaysan lagala kulmi doono jawaab toos ah oo ay kamid tahay in la bartilmaameedsado xarumaha tamarta nuclear-ka ee Dimona ee Israa'iil sargaalkan waxa uu intaas ku daray hadal lagu baahiyay mareegta wararka ee Iran oo sheegtay in fulinta qorshe kasta oo looga goleeyahay in lagu dumiyo nidaamka ay ku qasbayso Iran inay beegsato kaabayaasha tamarta ee gobolka inkastoo Israa'iil aysan weligeed si rasmi ah u qiran inay haysato hubka nuclear-ka haddana qiimeynta caalamiga oo badan ayaa muujinaysa inay haysato barnaamijka nuclear-ka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah hubka sirta ah ee wax gumaada ee caalamka Israa'iil ma aysan saxiixin heshiiska ka hortagga faafinta hubka nuclear-ka oo heshiis caalami ah oo laga hortagayo fiditaanka hubkan waxa ay Imaaraadka ku weerartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in ka badan 5 laabka inta ay weerartay Israa'iil oo lagu qiyaaso 2,000 taa oo ka dhigan marka ay Iran hal diyaarad ku weerarto Israa'iil waxa ay dhulka Imaaraadka ku weeraraysay 21 diyaaradood ururka Hezbollah ayaa soo saaray war-saxaafadeed lagu wargeliyay Israa'iiliyiinta inay isaga baxaan masaafo 5 kiiloomitir ah oo ka tirsan deegaanada ku yaala xuduudka u dhaxeeya Lubnaan iyo dhulka Israa'iil haysato sida ay warisay Al Jazeera Mareykanka ayaa ka fikiraya inuu Shiinaha ka codsado in uu yareeyo shidaalka uu ka iibsanayo Ruushka iyo Iran isla markaana uu kordhiyo shidaalka uu ka iibsanayo Mareykanka arrintan waxaa la doonayaa in laga hadlo ka hor kulanka la qorsheeyay ee u dhaxeeya madaxweyne Trump iyo wasaaradda difaaca Kuwait ee ka qaaday ay Iran fulisay sida ay warisay Al Arabiya Israa'iil ayaa xirtay masjidka Al-Aqsa waxaana la joojiyay in maanta lagu tukado salaada Jimcaha iyadoo go'aankan lagu sameeyay xaaladda dagaal iyo weerarada ay Israa'iil kala kulmayso Iran sida ay warisay Al Jazeera ciidanka difaaca Israa'iil ee IDF ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan qabashada gantaalo cusub oo laga soo riday Iran kuna sii jeeda Israa'iil bayaan ay ku daabaceen Telegram-ka ayay ku yiraahdeen wax yar ka hor IDF waxay ogaatay gantaalo laga soo riday Iran oo ku wajahan dhulka dowladda Israa'iil waxay intaas ku dareen nidaamka difaaca ayaa hadda shaqeynaya si ay u qabtaan khatartaas IDF sidoo kale waxa ay sheegtay taliska difaaca rayidka inay dirtay tilmaamo taxadir leh oo loogu diray telefoonadooda gacanta ee dadka ku sugan meelaha khatarta khusayso dadka fariintaas helay waxaa lagu wargeliyay inay galeen meelaha ammaanka ee bankarka ama hoyga difaaca oo halkaas ku sugan ilaa ay ogeysiis kala bixiso tirada dhimashada iyo dhaawacyada Israa'iil ee duqeymaha Iran iyo Hezbollah ilaa 40 qof ayaa ku dhaawacmay Israa'iil hal maalin gudaheed halka 10 qof lagu dilay goobaha gantaalada ku dhaceen tan iyo markii weerarku bilowday wasaaradda caafimaadka Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in 140 qof la dhigay isbitaalada 24 saac ee soo dhaafay taa oo ka dhalatay iska hor imaadka u dhaxeeya Iran iyo Hezbollah oo isku dhinacayo Israa'iil iyo Mareykanka oo isku dhinaca kiisaska waxaa kamid ah 1 qof oo dhaawac culus ah 19 qof oo dhaawac dhexdhexaad ah 114 qof oo dhaawac fudud ah 4 qof oo la kulmay argagax 2 qof oo weli xaaladooda caafimaad la qiimeynayo wasaaraddu waxa ay sheegtay bayaan ay ku daabacday Telegram-ka in tirada guud ee dadka ku dhaawacmay
tan iyo bilowgii howlgalka ay gaartay 1619 qof kuwaas oo loo qaaday isbitaalada ilaa subaxnimadii maanta oo Jimco ah. Dhankeeda adeega ambalaaska ee Israa'iil ayaa sheegay in 502 qof dhaawac ah loo qaaday isbitaalka intii lagu guda jiray toddobaadkii ugu horreysay ee dagaalka. Waxa ay sidoo kale sheegtay in 138 qof ku dhaawacmeen goobaha ay gantaaladu ku dhaceen, kuwaas oo ay ku jiraan 10 qof oo dhintay, 2 qof oo xaaladoodu halis tahay, iyo 6 qof oo dhaawac dhexdhexaad ah, iyo 120 qof oo dhaawac